Salaamu calaykum dhegeystayaal Ramadaan Kariim kuna soo dhawaada taxanaheennii sheekaalgameeda dareemin geerida iyo qaybtii shanaad. Dhegeystayaal, si aan idiin xusuusiyo tii afraad waxay noogu joogtay waagu markuu dilaacay ayaanu xidh reerka dushiisa ah degnay. Horaa loo yidhi dad baa ku qariyee dhuli kuma qariyo. Qaybta shanaadna waxay ku bilaabani sida tan. Dhulku waa hawd aanu ku sugannahay, laagaha dhaadheer, jeexjeexyada, qowyaha, kaymaha cufan ee dhirta geedba geed ku tiirsaday, midhayada dhafaruurta ku maran, geedgaabka ka hoos baxay, laamaha qudhaca ee intoodaba ka lugmeersaday, ee aad mooddo dhallaan iyagoo ku kala dhex jiro waalidkood ay isqooraqooraysteen oo midiba midka kale uu guudka iskaga duubay. Intaasiba annaga waa nala heshiis, waxayna difaac nooga yihiin cadowna arka, suudiga cadceedda iyo gabadhanada dhaxanta oo aanu gabaad uga gallo. Marka laga reebo noolayaasha bogga ku siqa oo waabayda ama qaniinkiisa loo dhiman karo oo aan shakhsiyan aad aan ugu boqo. Waxaanse mar walba ka magan galnaa digriga Eebbe subxaanahu wa tacaala oo ah waddada keli ah ee aad kaga ammaan heli halaqa iyo micida bahalaha halista ah oo juuquu hoygow yihiin. Iyadoo ay saas tahay waxaa haddana si fudud u soo gaari karaa howlgallada wayaanaha oo waxay kaabiga u saaran tahay wadda baabuur, taasoo cadowga u sahlaysa saanad iyo saadba in wakhti yar ku soo gaadho ciidamadooda goobahan ku sugan. Marka ay ku naafoobaan dagaalada ay kula jiraan ciidamada gobonimo doonka ahna, waa meelaha inta badan ay dhaawacooda gaadiidka kaga qaadi karaan ama kolka horeba ay ciidamadooda ku keenaan kagana daadiyaan. Isku soo wada duubo, waa goob raadkooda uu ku badan yahay oo ayna ka faaruqin. Yeelkeeda waxaan iyaguna ka marnayn cutubyada ciidamada jabhadda ah ee faltanka ka wada agagaarkan iyo horimada sida gaarka ah loogu xil saaray oo aanu rajaynayno in aanu durba iseli doono. Cadceeddu intay godkeeda ku xaroonaysa ayaanu sugaynay oo geedo qalaanqal ah ayaan maalinkii oo dhan gabaad noo ahaa. Kaliya kama dhuumanayna cadowgii xabaddu naga dhaxaysay ee waxaa kale oo aanu ka dhuumanaynaa shacabka laftiisa. Sababtuna wax kala ma ahee waa dhiig ku yaalla maryahanaga oo inay shacabku nagu arkaan uu nidaamka ururku mamnuucay. Mayayna arwaaxda shacabku didinbaa, ma jaajuusyuuna ku farxin cadowgana kaga farxininbaa, ma inaad dhaawac goobahan ku haysataan yeelan tuhminbaa, ma wax kalaa adba sida aad doonto ku macnayso. Maalintaas aanu dhuumashada juuqaha ugu jirnay wuxuu noogu dhammaaday annaga oo ay nagu idlaatay baahi aadamatii heli jirtay oo idili. Waxaase noo dheeraa leeleelka iyo taha nafti hure cadde oo laftii jabnayd ay weli afka kala hayso, ciddii kabilahaydna aan weli la helin. Gabalku markuu dhacay ayuu Cabdikaafi dhankii reerka noogu daqaqan tegay, isaga oo leexada xoolaha dheelmadka ah isku qarinaya, aadna uga taxadarayo cadowga oo ay suuragal tahay in uu reerka ku jiro ama uu ku wareegsan yahay. Nasiib wanaag, ardaagii ugu horreeyay wuxuu ugu tagay Cabdigoodir oo magaaladii ka yimid, markaasna boodhka iska jafaya. Isna daadin kadibna inta gadaal isu soo majiray ayuu ku yidhi, walaal Goodirow, yar kaalay, agtana soo fudaydi. Haye walaal, ina sii wadi. Cabdigoodir waa xubin bisil, waana shakhsiyaalka loogu kalsooni badan yahay ee ugu firfircoon xubnaha jabhadda ee aaggan ku sugan. Waa geesi xilkas ah, hawl qaran marka loo diro, waa nin aan laayicin waajibaadka loo xil saaray iyo qorshaha lagu haleeyay, waa nin dhiifoon aadna u feejigan. Cabdigoodir markuu isla soo taagay nafti hure Cabdikaafi wuxuu warbixintii ugu daray inuu caawa 3 saac oo fiidnimo kula ballansan yahay meel noo jirta dhowr dhawaaq oo dhaadheer. Cabdikariin, Bisle, Cabdikaafi, Istiiliye iyo naftoodurayaal kale. Nafti huruhu hagaag inta uu yidhi ayuu wixii noogu muhiimsanaa u diray Goodir, inta in lacaga oo kuusan jeebka kaga yuubay. Una Cabdow soo dhaqso ayuu carab dabacsan u sii raaciyey. Haye walaal ayuu isna ugu celiyey inta uu dhankii reerka qoobka u rogay. Cabdikaafi inta sud yar oo ka dambaysay fooda la soo galay oo dogob midhayo dhex jiifa sinta saartay, geeslaabkii jarmalka ahaana sogsog wejigiisa ku quman ku tiirsaday, hal sigaara oo aad u qiiq badanna meeshii ku qiijiyey.
ayuu daqiiqado xogaa ah wiilkii maqnaa sugayay oo kolba jeedaalinayay. wax yar kadib ayuu humaag ruux hortiisa ka soo mudhiidhi, marba marka ka dambaysa wuu soo dhowaanayaa. waa nin qori sita, u diyaargarooba. allamaya waa qof shacab ah oo wax jeeni qaarsan. wuu soo gaadhay. haa, waa halyigii goodi lahaa oo ka soo hormaray daqiiqadihii uu nafti huruhu filayay inuu ku soo laaban karo. eebbow nabigiisii nuurka lahaa la xidhiidhi, wiilku masange baxdow ahaa ag fududa, ayuu qalbiga ka yidhi. agabkii wiilku siday markuu ka qaatay ee ay salaan gacaltooyo oo sagootis ah isqooraqooraysteen, ayuu wiilashii ay ballantu u go'naydna farriin xidhan oo cidda ay khusayso uuni fahmayso cabdigoodir faraqa ugu guntay. jannada inoo ballan ah iyo idam alle walaal ayay ku kala masheerteen. waxaan maqlay jaanqaad iyo dad kolba kolka ka dambaysa soo dhowaanaya. markaasaan aayar soo kacay oo aan dhankoodii u soo dhaqaaqay anigoo faraha foodooda ku socda oo qoriga keebka haysta. liifka ayaan ku aadiyey intaan geed dhinaca saaray. waxaan u fiirsaday sida feejignaan la'aanta ah ee isooga dhagabdhagablaynhayo qofkan miskiinka ah ee aan isha u dabayo. ciddooniba ha ahaado, eegga aayihiisu waxay ku jiraan fartayda. in badan buu xaalad noocan oo kale ah nin ciidan ihi ku makalay ruux aan la dileen. waxaan u jeedaa qof aan ahayn cadowgii uu dabka u sitay, saaxiibkii ama ruux shacab ah. marar badan ciidamada wayaanaha iyo kuwa Soomaalida ee ku jaalka ahiba dad badan oo shacaba ayay ismoodsiis ku dilaan. oo maxay u dili waayeen? kolka horeba soo lama amro jabhad baxsaday intuu noqon lahaa ha noqdo shacab dhintay. cajiib. dhiig lagama qaato, ciddii dishayna looma qisaaso. waxa ugu weyn ee ehelka qofka xaaladaas ku dhinta la siiyaana keliya waa raaligelin afka ah. iyagoo daliishanhaya ayay tusaale u soo qaataan askari ama dabaqoodhi jeer hore keli ama wadar naftood horayaal ahi ay kaga dileen falgaadma ah. waxayna garowshiye ka dhigtaan in dilaaga shacab la moodayay. yeelkeedee waxaa la wada og yahay in ciidamada gumaysigu ay gabaad ka dhigtaan shacabka, waana sababta ay saldhigyadooda ugu yaalaan bartamaha degmooyinka ama tuulayaasha. waxaa kale oo maragmadoon ah xataa howlgallada duurka ay ugu soo baxaan in ay reeraha u soo hoydaan oo ay aqallada shacabka iyo xerada xoolaha ay isku meermeeraan oo ardiga ka xidhaan. yeelkeeda askariga wayaanaha ah ee Goondar, Goojaam, Maqala, Dhabrabirham, Adhigaraad iyo Shawa laga keenay iyo nafti uhraa ciidiisa hooyo kula dhex faltamaya isku duruuf ma aha, isku xaaladna ma baqa geliso. sidaas darteed 90% kama cabsi qabo goortan habeenka inuu joogdan aan ku jiro axmaar soo hawaysan karo. taxadarse kama tii karo. qofkii oo aan waxba ii jirin asageeda noo dhexeeyaan ayaan dhagahayga waxaa soo jeetay codka dabacsan ee dareen taabadka leh eed moodayso hobalkii codkiisa lagu masaalay codka weylaha. waxaan ka wadaa Cabdi Tahliil Warsame. la soco qaybta xigta iyo sheeko halgameeda dareemin geerida.